السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. walaalaha qaaliga ah kusoo dhawaada duco channel. maanta haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan rabaa inaan idinla wadaago suurad gaaban oo fudud oo aan rajeynayo inaad dhammaantiin garanaysaan. waxaa la isku raacsan yahay in suuradan akhrinteeda qofka badiyaa uusan ku qadin, in uu ilaahay daboolayo baahiyihiisa oo dhan weliba waqti kooban. marka aad doonayso inuu ilaahay ducadaada kuu aqbalo, in uu ku siiyo waxa aad rabto oo xanuunka ama baahida ku hayso uu Rabbi ka soo jawaab celiyo, waa inaad suuradan akhrinteeda badisaa. waqti uma qabanayno iyo tiro toona, laakiin mar walba haddii aad akhriso way fiican tahay. suuradan waa suuratu duxaa ama waduxaa suurada aan u naqaano. suuradan ma aha markii ugu horreysay aan ka hadlo ama aan muuqaal ka sameeyo. horey waan uga soo hadlay in badanna waxa ay soo gaarto jawaab celin iyo faa'iidooyin ay ku sheegayaan qaar ka mid ah walaalaha. waana sababta aan u jeclaystay inaan mar kale ku soo celiyo. suuradan waxay ku bilaabanaysaa waduxaa. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahay wuxuu ku dhaartay barqinka. barqinka waa marka ugu wanaagsan ee maalinta ay bilowgiina kasoo tagtay weynaadkeediina aan la gaarin, yacni habeenna ma dhowo, habeenkii kalena wuu tegay. waa xilliga ugu fiican ee iftiinka jawiga, yacni xitaa haddii aad meel kulul joogto barqinka yacni waa waqtiga ay ugu fiican tahay. kuleyl sahsahna ma jiro, qabowgii habeenka uu watay iyo madowgiisina wuu tegay. xilligaas ayuu ilaahay ku dhaartay. waxaa ku xigta waleyli idaa sajaa. wuxuu ku dhaartay oo kale alleh markuu habeenka madoobaado. labadaas xilliba ilaahay baa gacanta ku haya. qofka markuu murugo ku jiro waa mar uu madow ku jiro. maalinta iftiinka badanna ilaahay baa keeno. labadaas xilliba alla wuu ku dhaartay. waxaan rajeynayaa qofkii yacni suuradan weyninkeeda iyo macaankeeda fahmo, akhristana inuu ilaahay noloshiisa ka dhigi doono mid iftiin leh oo farxada. maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa. ilaahay kaama tegin, kuumana uusan caroonin. aayadkan rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa lagula hadlayay. waxaa kaloo ay ku socdaan qof kasta oo mu'min ah oo ilaahay yaqaano, soomo, salaado oo yacni ilaahay xuso ama baryo. mararka qaar waxaa dhacda qofka asagoo ilaahay xuso oo waxyaabaha khayriga ah sameeyo in uu isdareemo in baahidiisii ay weli taagan tahay. nafta shaydaan baa ku xiriiray. waxaa laga yaabaa inuu isdhaho dadka waxunbay helaane, adigana ilaahay mar walba waad xustaa oo waad baridaaye ducadaada maxaan loo aqbalin. macamal ka wanaagsan iyo ducooyinka aad samaysaan laga aqbalin oo Allah kuu caraysan. waxyaabahaasoo kale nafta way isweydiisaa. ilaahay kuuma caraysna, kaamana uusan tegin. nicamka uu bixiyana kuma xirna cidda uu jecel yahay iyo cidduu neceb yahay, labadaba waa uu siiyaa. marba haddii aad tahay qof alla xuso oo baryo, wax walbo aad weydiisatay way imaanayaan, wayna kuu soo dhow yihiin. walal aakhiratu khayru laka min aluulaa. nolosha dambe ayaa kaaga wanaagsan noloshan hore, yacni middan hadda aad ku jirto waxaa ka fiican midda dambe ee soo socota. wala sawfa yucdiika rabbuka fataradaa. ilaahay wuxuu ku siin doonaa wax aad ku faraxdo oo aad ku raali noqoto. wuu ku siin doonaa oo wuu ku siin doonaa ilaa adiga aad ka dhahdo hadda way ii dhan tahay, yacni waxaan doonayayba saan unbay ahayd. ilaa adiga aad ka qanacdo ood heerkaas ka gaarto, ilaahay wuu ku siin doonaa, raallina wuu ka dhigi doonaa. aayaadka inta dambana rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu xasuusinayaa nicamkuu ilaahay siiyey. wuxuu leeyahay soo adiga ogoon ah aniga kuma helin oo kuma ilaalinin, soo adiga oo waxba ogeyn kuma helin aniga, yacni aniga kuma qabanin oo kuma hanuuninin, soo adigoo cayr ahoon waxba haysanin aniga hodan kaama dhigin. qofka markuu qur-aanka akhrinayo oo uu macnahana fahmayo wuxuu dareemayaa inuu ilaahay toos ula hadlayo, ilaan waxa la akhrinayo waa hadalkii ilaahay. faa'iidooyinka suuradan ay leedahay aad bay u fara badan yihiin. waxaa ka mid ah in uqdada lagaa siibo ama lagaa bixiyo. markaad yacni niyadda iska leedahay aniga maxaa noloshan ugu jira, aniga ducada showlayga ma aqbalin, aniga dhibaatadan goormeen ka baxaya, waxaad ogaanaysaa inuusan ilaahay kaa tegin, kuuna caraysnayn, noloshaadan horena
ay ka wanaagsanaan doonto nolosha dambe ee kuu soo socoto, inuu ilaahay kuu ballan qaaday wax aad ku raali noqoto, wax walbana uu ku siin doono ilaa adiga aad ka qanacdo. Suuraddan waa suurad aad u weyn, fadligeedana badan yahay, farxad iyo waxaad ku heli doontaa nolol aad ku raali noqoto ilaahay idinkiis. Akhrinteeda inaad badisaan ayaan isku dardaarmaynaa. waxay suuraddan kusoo degtay nabiga sallallahu calayhi wasallam mar uu xanuunsaday oo gaaladiina ay ku dhaheen maxamed shaydaankiisii wuu ka tegay sallallahu calayhi wasallam, ayagoo ula jeedo jibriil calayhi salaam oo waxyigii uu xoogaha dib dhacay. eebbana suuraddan ayuu kula hadlay, wuxuu allah u sheegay nabiga sallallahu calayhi wasallam inuusan ka tegin una caroonin. waxa kale oo la xasuusiyey in asagoo agoon ah uu ilaahay ka dhigay midkaas sharfan, waxaana la amray in loo roonaado dadka masaakiinta ah ee dawarsanayo agoonta. waxaa kale oo ilaahay ku faray in laga xamdi naqa nimcooyinka uu alla bixiyey. nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi hodantinimadu ma ahan xoolo badni, laakiin hodantinimadu waa in uu qofka ilaahay siiyo naf hanuunsan oo khayrka u hoggaansan. waxaana wariyey Bukhaari iyo Muslim. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.